waxaan goobjoog ka nahay guddiga qaranka wasaaradda caafimaadka oo weli xafiiska ra'iisul wasaaraha agabkii ay noo keeneen oo maanta aan goobjoog ka nahay ayaan markii ugu horeysa maaragtay arrintaas aan ka mahadcelinayaa anigoo ah xildhibaan koonfur galbeed xildhibaan diinkii Sheekh Xasan waxaan goobjoognahay in maaragtay qalabkii aan la wareegno oo maamulka sida sheegay aan la wareegayno kuleyba waxaan maxad u jeedanayaa bahda caafimaadka oo halkaan maaragtay ayaga mana socdaan oo iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo gurmadka mana guddiga qaranka inta horta maxad weynaan u jeedanaynaa tan kale maxadda aan u jeedanayno waxa baahida ay maaragtay magaaladan maaragtay qabto siday degdeg ah uga jawaabeen oo ay maaragtay assessment-kan hadda laga soo arareen taas maana ayaan ugu mahadcelinaynaa marka arintan waa arin aad iyo aad maaragtay annagan maaragtay degmada oo dhibka haystona wax weyn maaragtay ka tari doono maadaama aan waxaan maaragtay dhibaatada iska socoto aan la garanaynin wuxuu maaragtay in la ogaado cudurkan inuu sida qaabku mana u jiro in la ogaado arin aad maaragtay aad iyo aad labadan bir wajah wareersanayn laakiin hadda alxamdulillah rabbil caalamiin waxaan maaragtay hadii agabkan maaragtay meesha la geeyo wax waa kala cadaanaya marka aad iyo aad ugu faraxsanahay hadaan nahay maaragtay waxa mas'uuliyiinta sida idinkan maaragtay aad maaragtay soo xilqaanteen oo maaragtay iyadan maaragtay aad iyo aadan idinka mahadcelinaynaa xafiiska wasaaraha iyo wasaaradda caafimaadka waxaan halkaan u keenay qalab caafimaad hortaga COVID-19 iyo qalab yar oo cholera si degdeg ah u keenay waxaan codsaday guddiga qaran COVID-19 oo wasaaraha hogaaminaya waxaa magaalada nagu soo dhaweeyay gudoomiyaha degmada Baraawe iyo guddigii oo Baraawe loo aasaasay COVID-19 si fiican ugu soo dhaweeyeen waan maanta assessment baan ku sameynay samples baan qaadanay ilaa 14 xab kuwa kale meeshaan dhaqaatiir oo meesha joogaan aan tababarnay haddana xamraan u soconaa si aan samplekaas laboratory aan geyno test gareyno magaalada si fiican ugu soo dhaweeyeen shalayna madaxweyne Naftagareen iyo wasaaradda way kulmeen waxay ku heshiiyeen in mission meeshaan ku sameyno iyo magaalada marka xoogeen saarno qalab inaan keeno marka dadaalkaas aan ku jirna walaalaheenana waxaan ka codsanaynaa inay ka hortagaan cudurka degmada Baraawe khaasatan inay wacyigelinta ay xoojiyaan si ay dadka guryahooda joogaan COVID-19 kana aan ka hortagno waxayna soo gaartay fiiskii koowaad oo daawada lagu talgalay cudurkan bacsan ee coronavirus ah ilaahay ma hadii runtii dadaal badan iyo fikir badan loo galay runtii marka ayagana wasaaradda caafimaadka daawadiina soo gaarsay runtii maana aad iyo aad ugu mahadcelinayna maadaama oo hadda maana baaritaankii hadda guda galeeno runtii waa arin anaga maana intaan oo maalmood oo waan ku dhibaatoonay oo rafaad badan la marnay maadaama haddana soo gaartay daawadiina soo gaartay ee dhaqaatiirtii noo yimaadeen runtii waxaan ugu mahadcelinayaa sida sharafta ah cabashada ama baahida anaga markaas oo maana dhahaysay in lagu soo jawaabo waxa hadda nala taagan dhaqaatiirtii degmada ay ka shaqeey jirtay waxa kale oo nala jiro marka saxaafadii iyo xildhibaano qaar ka mid ah oo maana deegaanka ka soo jeedo runtii waxaan ugu mahadcelinayaa mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadba daawada baahiyada anaga marka aan qabnay iyo sida ay noogu soo gaartay runtii arin fiican mar badan aan suugaynay arinta laakiin xaqiiqatan waxay tahay wax walba waqtiga leedahay waqtigeeda maanta la joogaa dadka safarka noogu yimaadeenna shaqo fiican soo qabateen aad ay idinkaga mahadcelinaya maadaama waqti dheer maana juhdi iyo dadaal badan aad soo geliseen safarkiina runtii waa dareemi karnaa safarka xaaladda ay marayso ama dhibaatada ay leedahay annagana tan maamul ahaan waxaan ugu mahadcelinayaa dawladda federaalka Soomaaliya dadaalkii badan nala gashay annagiina maadaama maamulka degmada oo arintaas aad iyo aad maana ugu baahneeday haddana waxaan la wareegnay daawaan la wareegnay magaaladiina hadda si gurgadeena insha Allah taala shaqooyinkii markaas annagana hortaale ayaan bilaaban doontaa ilaa 30 kiisood ayaa la rabaa in magaalada laga ogaado